السلام عليكم كرار نقطة إن شاء الله مع كوتش معناته ولد جوجا مركا قصر إلى دين كوتش ولد يسوي قصر بارجع أنا والله فقري عد ولد دي أردت أسوي قصر ما بجرتبه مركا كرار نقطة إن شاء الله برنامج وحاوية سؤالها فيزاها كذا صار جواب لها إن شاء الله وحي سؤالها قبتها وسوق ركرتان إن شاء الله كوتش ما كذا كبيع عوانا كان ذاك حقة تاني قبل راحة تاني وحلي كقول يقربوا جوجا بس كعبية ما انرجي درينك واي أنا بدك وحاب بيع على بيع This water. coconut عادي halkaas aan bilaastay يا كذا اسمع اسمعنا كقاعدة صاحب قال إن شاء الله سيش قريتك صاحب اللي جالسية مركب برنامج وحلقة هذي وحقصوا قرني إن أنت حالة الشيء جاي سهرة أو ترى هذي فيزويك كرادري سنساكرية معها مركب حاسسنا وراسن كتان وكنا ذا جوكتو مركب كوا دمرك هالك جوجنا كل يبقى كوج أحمد ضليرت حاجة مود جوكتو dad horta dhalinyar badan badan ku xiran tahay kubadda ciyaara صح dumar waxaa jira wanaagsan oo Soomaaliya jooga صح ma kula tarin sama kaliya aan Soomaaliya soo guursan dumarka ay keenaan wadanka والله taas aniga ma coachka daraaken wuxuu ku xiran yahay adiga dhowr boqol oo dhalinyar ah meeleen coach gabdhaha soo kale in inta la keenaa ha hada soo cid hada oo guur fiican sameystaan meeleen waliba kinan oo taqriiban Libya tagay soo cali sheegay hadii opportunity-gaas jiro ka faa'iideysta aad maxaa lagu qaraacado easy wax ma aragto هذا ما الصفر كل ما كذا شيء كل ما نكره مركز إن شاء الله برنامج كل شيء قرية دك ساحبين اللي جالسية كره النقطة هداي مركز جات وقت دك السوق قبطه كوتش قصر نوب لابي ما شاء الله لكن حديث سهرة إيه سوق الشو سهرة وحنك عصير دب وسوق الشو إن شاء الله برنامج كذا كره كل شيء كي تصدح مد بروق ما نكره كذا متكود حبي حق جامعة ده حدات هاي أرضي حديات هاي أرضي وحكومة ما كتا أرضي إنما هذا هذا جامعات كذا تركي كسوق هذا كذا زكية كسوق وحكومة ما كتا أرضي إنما هذا لكن وحابي سكالرشيب ده تطلع هاي ستتهان هنا والإيمان كتا عندنا كم يحكتوا لكن ده كسكالرشيب وإلى سوبر ستان ويا لكن واحد وقتها كرجع معهن أنت سو مليون أو قف بجوكتو أو كيمانس إنديا كيمانس تشاينا كيمانس أستراليا مركز قف كستوى نسيبكي mid kale labaad waxa way group shanta ka group shanta oo shaqeeya waxa bayaan dad qaxooti meel ku ah oo kaar qaxooti haysto waxay ku soo baxayaan dadna meesha garanayaan Canada waxa leeyahay anaga qaabileeno dadka anaga wasuuliyaddooda qaadayno hadii wax dhibaato aad geysato ogow shanta qof oo ku keenta ayaa loo qabsanaya kiradaada biilkaaga wax kastana ayaga qabo ilaa aad shaqaad ka helayso marka group shanta ah umada qiyaan maxaa la qiyaamay dad waxay sameynaysaa in bangi furaya meesha kaar dadka ka xoqdo dad Afrika jooga boqorka soo dhaweynta maxaa wadani boqorka qof la qiyaama ma kaar iyo wax visa kaar iyo waxba ma xuquuna meesha caadi leh life dad waxa haystaa waxa mid waxa magaranaysaa ne waxa maqlay inaad qof Afrika cunto ka waran insha Allah cidna lacag iskama qaadato cidna isma wareerinayso marka qof kasto waxaa lagu caawinayaa ما كفى ما والله عدوا ما شاء الله عقله ممكن قالنا واحد لين للشيء جايا صح للعقل صدق ماشي مسوق كلا اوريجينال كيبو ايزوي واحد فعلا وكل شيء ما يا dad badan dadku waxa jecel inaan ku soo baxaan midda kalmaanta uu eego Coach Ahmed qof ka waran maanta visa kala buuxsan oo ku buuxsan baasaboorka Soomaaliya ka waran free baa la isku geynaa ما يصاحب horta lacagta way ka baxaysaa si kaaga baxdaba hadii application lacagtiisa bixinaysa oo xajita application fee baa jiro laakiin ogow dad waxa jiro shirkado ah oo tuuga ah oo lawyer isku sheegaya way jira dadka insha Allah dad cid kastana iska aaminina ani waxaan ka caawin karaa waan ka caawinayaa hadee noqoto salaam alaykum wa alaykum salaam walaal xagee kala soo hadlaysay magacaaga iyo su'aashaada cabdiqani waa la dhaxaan jooga South Africa marka waxa u baahnaa inaad iga caawisid fiisahan oo Canada waan gartay marka visa noocee raadinaysaa adigu ma kan shaqada ma kan jaamacadda mise waxa weeyaan kan oo group shanta ah kan shaqada raadinayo hadda dhowr mar la soo wacay oo li dhahay fiisaheena oo kuwa Canada soo waceen صح
marka Canada Canada visa it is Canada visa door mar ay soo waceen marka ma aqaan marka kuwaas been inay yihiin lacag soo diray door mar ay dhahaan صح haddana waa aamin waa هذا ماذا كل شيء قد تدر بين وجهه ما قرتين dad waxaa jira ku dhahay viisaha lagu soo dhameynaya viisaha durba lagu siinaya lacagta soo dhameey mar haday ku dhahay lacag soo diro dadka waa tuuga ma garatay waayo maanta qofka lacag application ku buuxinayo wuxuu ku weydiinaya application fee ma aha miya wuxuu ku leeyahay waxa lagaga baahan yahay in adiga timaado laakiin marka ugu hore de lacag ku weydiiyaan waa dad lacagta doonaya ka dhacaan baqaamo baa lacag soo diro imise ku dhahay lacag soo imise aad niyo mar waxay dhaheen $500 mar $300 marba si marka meel ay imobi dhaheenna ma jirto niyo laakiin waxaad ogaataa coach Axmedow dad waxaa jiro horta saa ku shaqaysto waxay kaaga bilaabay $500 ba kaaga bilaabay si dadka ku aaminto may waa kuwa hindi ah horaan waan arkaa waan la hadlayba waxay u dhahay xafiis baan ku leenahay u dhahay Canada waa aniga tagay xataa waan ka waayay ka horan xafiiskooda ma jiro oo guri ma dad iska been sheegayaan dad iska been way jiraan marka insha Allah saaxiib dadka sida ha aaminay ma garatay haddaad dad aaminayso waxaad ku leedahay haddii email lagu soo diro mise information lagu soo diro waa inuu ahaado emailkooda .ca hadduu ca ka soo celin waxa weeye government kama socdo ma garatay okay see ku aamini karaa marka haddii kuwa saxda see ku heli karaa haddii adiga kuwa hadda leedahay way ila soo hadleen lacag bay soo weydiisteen ani informationkooda ii soo dir waan ka soo hubinayaa hadday run yihiin hadday been yihiin I don't think so. انت كوسو معاد صاحب هو صاحب ما يسو درت marka email kooda كو صاحب ايميل كو صاحب horta applicationada shaqar hadis tahay website ka laga buuxin ku soo diray ma garatay anaga waxaan ku buuxinaa ma aha waxaan ku sameeynaa ma aha ma garatay coach buu qoslaya waxa weeyaan adigina shaqada buuxsata ma garatay midda koowaad shuruudada lagu xiran ku kala sheegaya midda ugu hore waxa weeye waa inaad ku hadasho luqadda ingiriiska waa muhiimadda ugu weyn weeyaan sababtoo ah Canada ku hadlayso luqadda ingiriiska mise luqadda faransiiska waa labada luqad ka shaqeysa way Canada haddaadan labada luqad ku hadli karin waddanka maba lagu qaadayo waayo interview baa maraysaa applicationka waa inaad adiga buuxsan karta ma garatay maanta maxaa adin lagu kaxeynaa sababta lagu kaxeynaya waxaa weeye khibradda aad leedahay waa inaad ku hadli karto luqadda ingiriiska waa ku hadli karaa si fiican ugu hadli karaa laakiin qaabka lagu heli lahaa ii sheeg saaxiib website baan kusoo qorayaa website-ka ka buuxso shaqada jecesha ka buuxso haddaad luqadda ingiriiska garanayso insha allah wayna kusoo fudaanaysa markaa shaqada buuxinayso waddankaad joogtaa u sheegaysaa waxaad qabato u sheegaysaa baasaboorkaad haysatana u sheegaysaa ma garatay ogow been weligaa ha sheega sababtoo markii safaaradda lagaaga waco safaaradda marka lagaaga waco wax lagaaga been wax kastana iskeenaan okay صاحب احسن كل سؤال ما يقبتها ما برادة وما حسبتها برادة هيا والله هيا ذيك ابو السلام عليكم ايوه عليك السلام استر ادار جوجو حجنا بس استار ويا استر مقع وحواقتها ايتوبيانه صاحب يعني ان شاء الله برنامج كسي شاغريدك صاحبين سي جارسيه مرة والسؤال هنا كسر عليه بدل ما هذا ويدينا جروب شنطة هداينا وان كجوابي مركز إن شاء الله وحي سؤالها قبطان وان كجوابينا إن شاء الله كوج أحمد ما أنت باسبورك حكان لنا باسبورك الصومالية قفدوا ما أنت سيستم كجلي أو أبليكيشن كنا كوب حسدي أنا وحيرت إن الشرف وين تهاي وايو باسبورك الصومالي أي استعمال إن أبليكيشن كوب حسد سيستم بوب قريبة أقدر كنا سمعنا حن جعلنا هاي إن كي تجنا باسبورك سوق عدنا إن تجنا يتوب باسبورك سوق عدنا سوق بتاعت له حسب ما سوق وانا يا صاحب إن شاء الله دت كده هاي السوق وما خلقوا سوق بتاع صاحب سؤالك أنا حاول جدا كي بينا قوتان السلام عليكم صاحب ويشو عليكم السلام السلام عليكم وعليكم زياد سعيد صالح يا حاج قولح بلد سامينا
أما مسعد من جلاشي أما مسعد من جلاشي انت قراني أنت قراني مسعد وصل معاك ودع معاك ودع أكيد هذا معاك مسلم قد كده معاك قد كده معاك ودع قد كده معاك ودع قد كده وحباك قد كده وحباك قدر ما قاطع ان شاء الله ضد بعض من يابس نقص قراعه كل سؤال بيقبين كوج احمد هذا سيادي كل سؤال بيقبين سؤال شو محفوظه انت سيادة سعيد صالح مر والبو تي في وين من الصورة رقم مالك الصومالي تي في سيادة حوران قريم برنامج بدن بي بي سي هيران اونلاين وحال جوه كله وري وين مسعدة اسماعيل iyo xasan goodax labadana waa joogaan ما شاء الله marka waa dadka waana min yaabul sooyaan Minnesota صح kolay waxay ku weydiinayaan ma aqaan laakiin hadhow ku celinayna insha Allah hadday soo dalban karaan insha Allah in dib u soo dalbadaan sababtoo ah hadda inta soo qof message soo qorayso waxba kama arko aniso lagu soo qabanaya saaxib mise saaxib horta inaan ku dhigata saaxib horto may dumar saaxiibadii waxa soo dhawaasay lama dhihi karo Soomaha raga caado dhihi karta saaxib weeyaan insha Allah wixii su'aalaha qabtaa soo qori kartaan aniso waa wanaag ku soo qabanaya ma qabanaysid waxa ku xigo funny guy سيدي حقيقي جوجين حافظ قاضي ما شاء الله صاحب يال دتك دحay soo qabta marka lagu soo qabtay inaad soo qabato inaad dadka soo qabato inaad qabataan way wanaagsan tahay insha Allah durba inay qabataan waxaana dadka aniga degdegaan ahay yaa ku xigo سعيد حلانة ودبل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحق أنا قلص هذا يسوي سؤال هذا. نيو سؤالي waxa weeyaan ardaynimada ku tago Canada marka balqaabkii ugu fudud wax iyo shuruudaha igu xiran iyo baasaboorka Soomaaliya ma ku tagi karaa arday baa tiri ardaynimo wala ardaynimada ma xumo laakiin adiga xagga jaamacadda ka dhigata hadda iminka waxaan joogaa magaalada Boorama waxaan taamid marka magaalada Boorama ka dhigtaa Amuud ma sha Allah waan gartay aniga wax mid hore taladeeda waxa weeye mid kala talana waxa weeyaan inaad tagto horta Turkiga ma garatay jaamacadaha u tagto Turkiga kaaga fudud haddaad sanad ka soo dhigato Turkiga record ahaan bay ku sameynaysaa marka kan kala buuxsan kartaa ma garatay laakiin waxaan ku leeyahay horta ka bilow kan Turkiga inaad ku sameyso horta inaad buuxsato way timki saaxib ayo adiga mudan assalaamu alaykum ولا سؤال هذا سودا كوج احمد سلام يا اخي صاحب بالخيس بحي كنت قروب عشان ليس ما شيء جروب شنطه كجروب شنطه هذا انا كذا شيكه مره واحده انك كوي عليها سؤالها بدنكي جروب شنطه aad bay soo laabatay جروب شنطه waxa weeye adiga meel qaxooti ku ah wadan adiga aadan lahayn qaxooti aad ku tahay kaar qaxooti aad haysato 5 qof oo joogto Canada oo muwaadiniin ah hadda dad waxa laga hadlayaa inta sano joogay baasaboorada haysto oo shaqaysto ayaa dhihi karo qofka meesha qaxooti ku yahay uu ku dhiban yahay dawladda waan soo qabanaya dawladda مسؤوليتي ما خسارنا أنا مسؤوليتي قاعدة أنا مسؤوليتي أنا قاعدة إن شاء الله مركب وحاسة ميسان إن شاء الله إن عدد هذا ستان أتكرر إنسان قدام كندا صح مسوق ولا 1 سكند جروب شنطة وحابة هنا قف شنقف هذا إنه سبونسرشيب كوسا ما يصير لكن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعبد الرزاق جاء محمود الخاص هو عيا صوماليا ما شاء الله كارهان كسمايو ريك اسمايو واكر ريك اسمايو كوج أحمد يقول سلام ريك اسمايو وسلام يا
shaqadii baan ku jirnaa waxa malay ninka maalin habeenay inta anaga subaxay noo tahay ما شاء الله sagaalka subaxnimo ما شاء الله xafiiska shaqadaan joognay waa alxamdulilah walaal maxaa shaqadaan qabataa karin adiga maxaa qabataa aniga waxaan ahay dhakhtar waxaan ahay xoolaha ما شاء الله ما شاء الله su-aashaada soo daa saaxib waxaan rabaa inaan waxbarasho magister صح darajada labaad ee jaamacadda inaan ka sameeyo ayaan iyo degenaansho qaabka ugu fudud aan ku heli karo qaabka ugu fudud ku heli karto haddii aad leedahay xagga jaamacadda aniga waxaan ku leeyahay jaamacadda waa inay kasaan u sheegay ma garatay waa in horta turkiga yaa walaal xagga turkiga degenaanshaha caadiga ka hor degenaanshaha degenaanshaha caadiga horta markaad degenaanshaha caadi ka qaadanayso waddanka Canada mise Mareykanka waa in lacag badan haysato ma garata waa 500,000 waa inay kugu jirto accountigaaga igu cali meeqaa tiri meeqa kun oo dollar 500,000 $500,000 half million ha inay kugu jirto accountigaaga weeyaan lama lacag doonayo badan waay hadhow adig qof kasta degenaansho weydiisan kara laakiin lama doonayo maanta qof inuu degenaansho la siiyo uu hadhow dowladda ku xisaabtamo ka hor barnaamijka group 5 ka hor isaga group 5 ka waxaa weeye hadda kulli waddankaaga joogtaa kismaha joogtay maalin kagama socotid aad waddan kale dad qaxooti ku tahay adigu kaar qaxooti aad ka haysato 5 qof oo Canada joogta kaga garanayso in adiga kusoo sponsorship ku sameeyaan ee sida kugu kaxeeyaan adiga mas'uuliyadda qaadaan weeyaan group 5 waa maasantaa walaal waa maasantaa thank you ayo walaal adiga madaxay insha Allah assalamu alaykum كنت أحمد ركع وأنا هلا ما أنت ركز معي. ما شاء الله عاد بدين سلوينا برنامج كسي شرقرية سي ولا ليه نكوسي جاران قف قسطو إن رأي وحي ترى وأنا وذاقينا طلب بحن تصالي توسم بهاد برنامج كنا عمالنا ما بيحجر لكن إن شاء الله ما أنت قف قسطو حد جعل الله اليوم برنامج كندا قف قسطن وإيمان كرا إن شاء الله صاحب محاتري عم قصو قمر يا معنا عبد الرزاق نيوها صاحب wixii su'aalaha qabtaan hadda badankii waxay noqotay ka group 5 ta group 5 waa inaad qaxooti waddan ku ahaato weeyaan waddankaaga ma dhex joogi kartid group 5 kuma helaysid waa inaad joogto Libya waa inaad joogto Syria waa inaad joogto Kenya waa inaad joogto Uganda waddamada waa kuma qofka salaamu calaykum walaal عليك السلام walaal magacaaga xagga nagala soo hadlayso saaxib اي ورا من قد برنامج هردع بو ايغا ها ما حاصب دب هو اي هردعين ها ما برنامج waxa laga hadlaa sida lagu imaan lahaa Canada ma garatay xagee joogtaa xagee joogtaa مقدشة ما شاء الله waa dhisan tahay muqdisho waa dhisan weeyaan lama arkayo xagga dambe saaxib waxa laga hadlayaa dadka inayna soo tahriibin inay waddan kasta si sharciyeena ku soo galaan ma garatay إن هذا بوفس باي هاي العقد محاصتها مركب محلي قبنا كرا صوبة بيجا عاونيا والله aad baan ugu qosisay horta marka koowaad marka labaad horta boofis haduu ku hayo aadna lacagna haynin taa dhibkeeda leedahay ma garatay waa gartay ma xal markan xal wallahi horta aniga horta soo tahriib kuma dhahay sababtoo horta badankii waxay u badan dhibanaysa ma garatay maanta waa qosol baadin keena soo aye horta maanta qofka haduu lacag haysan meelna ka bixi kara ma garanaysaa maanta qofkii tahriib hadda lacag u baahanaya ma garatay lacag ma haysto xaasan waa qabaa caruba ii joogtay muqdisho jooga iska xamaasha saaxib fiicanahay boqolkiiba صاحب حمالك أو والله بالله حمالك أو كلام عباس صبحن بشي صدق بقول ما في قاطع مقدش قرحة وحيدا ما هيسين كان هذه ضل يغا كان ضد بانكرنيا ضد ريم مقدش انكرنيا او صح أصحاب بانكرنيا كل جوك تورنت بانكرنيا تورنت جوك تنكرنيا مركب صاحب هدي هذا أصحابك قرنيا سهلك وحوب أنت كجروب شنت وحوب أنت هذا إذا كارك وحتي عايز أنت ما قرأتي كارو حاستا أو توبيا هاستا قحوتي أوبر لوكاس وهاستا كين وهاستا صح هذا كارك وبطي ما شاء الله والله chance عم بعد يستعمل كساحب الله هذا جروب شنت وكوب بحكرة ما قرأتي لكن وحنا نقول إذا ودك كارك قحوتي أتكهست إن كلها بطل ما قرأتي صح
waxaad samaynaysaa ka soo qaba Ethiopia ku laabanaysaa mise Kenya hadda Kenya kaaga fududahay Kenya qofka iska gaari karo inaad Kenya gasho Ethiopia waa adag tahay meesha ku laabanaysaa dadka saaxiibada asxaabtaada Canada joogta waxaa ku leedahay nin sponsorship ay sameeya isoo kaxeeya oo sidaa kugu soo qaadi kara waa sidaa keliya group 5 ma garatay group 5 waa 5 qof oo isbahaysatay oo dhahayso qofka magaalada joogo mise wadanka joogo wax mas'uuliyadiisa anaga qaadayno hanoola keeno waan 5 qof ka badan baan garanayaa oo Canada Toronto joogtaan garanayaa oo baan garanayaa ما شن قف أو ذاك موادنين هذا شن قف موادنين أولاد بس ساس ما يريا كده إذا مركب محا يقولون سا مركب إذا حريك أتي مع أسفلك مع طيب صاحب بعد ما نوقف الشيء زي ما أنا حقي أنا صاحب مو بس هاي كورة صاحب مو بس هاي كورة أيوة قلت وحكى هاي قوانين كورة صاحب هذا دم ما صدق إنه يوقف الشيء حبضه معاته له حبضه صاحب حبضه شرعي حبض يقول سلمي مو بس هاي وحكى هاي قوانين مقرت اليوم حاجة تبغى لا أنا ما حاجة زهرة ولا كودة أظن مركب حالة مدح بيوتها ما قرأتي ما كده هذه صاحب مقدش عن جوي أنا دمين وها ستاف عبد في عن يقول لي ما قرأت أو أسكمل عملي يقول لي ما صعب دو مركب هالك جو دمين نمبر كي ما يا واقرتي ما يا صاحب إن شاء الله إن شاء الله كل حاجة سوق المجد في مركز جوته ما قرأتي إن شاء الله أنا وحنا كلها حمال كاجي واحد كلها ما قرأت حمال كاجي ناس كجوكتو ناس كحمالته مقدسة ناس كجوكتو كل وحي على سوق المجد في سدان أنا كل ما حمر كل ما نساعد هذين نقطة كذا ما كل ما نساعد ما قرأتي أيوة أسك حمالني يا كودة أسك حمالني يا كودة ساعد نور شيء بقولك زديته يا كودة أدياد حبضه يوصل لين وشرع على يوصل والله عاو قصوا إنه ما يكونه ما يزعل إن شاء الله إن شاء الله ولا سورة ولا سورة حسين إن شاء الله برنامج غلظ صاحب عاترة ما قرت عاترة حبض فيه عنه حوار بس هاته أو قرب جو يوصل لين وباسبور لا يوصل لين طريقة رادنا صاحب أدب ما صدق إن شاء الله ما إن شاء الله سورة هدينا يا هدينا صوحنا وخلاص حسين صاحب راني كان قرب بس واي ودالني ماما أيضا بوف سهم قرب ماما أيضا بوف لا إله إلا الله أنا بسمع بنتي سواي ها ماما أيضا بوف سمع بوف سايس واحدة مرة ماما كذا إن شاء الله أيه صاحب أدب بوف يا سكتي ولا إن شاء الله لا أيوة صاحب إن شاء الله نمبر كي كلي صاحب كان هو مشغولي إن شاء الله دي بنوقف صلاته بنوقف الشيء دد بدل ما قصريه صاحب عيال أدي السؤال عالي قبطة وذكي جواب هذا السؤال بدل نوقف الشيء هيك أحمد نقول روش علينا هاي كويس إسرائيل أنجوا على السوق السومالي وأنا كان سوق إن شاء الله السلام عليكم ورال وعليكم السلام ورال ما قاعد حاجة قصة الله يسوع مقعي وحبيب ملايين حاج ديوف حقيقة سؤال صاحب حقيقة سؤال الله يسوع وعكسوا الله يا بوصاص عكسوا الله يا ما شاء الله بصاص قاعد بقول سنت هاي سؤال في هذا السوداء صاحب والله برنامج كان قاعد بوقص لي عبار لما داوانا غير حفظ يوسف قبط في ترس كل عاي والله يا قسم السوداء لكن أنا بيزح بين كهلين لكن دور جبل كو قصرني واحد سؤال ما قبت هذيك من هذيك أنا ما كوزور هذينا هنا رفيف جروب كايور ولا جروب شنطة ولا ودن قحوتي كوانت ما قرأتي ما دام هذا بوساس جوت بوساس ودن كاغا بوساس ما شقينا سوينا كي هنا كي جوت ويان مثلا يوتيوب جوت مثلا يوغندا جوت كار قحوتي كايستو هاي برنامج هنا كلنا دام كويديو واكي
barnaamijka kale aa leedahay fiisada فيزا أو كان شقة ها كان شقة باسبور كان هيستوى لكم بحسن كتا ما قرأت باسبور سواء دون نقضاء كي تبين دون نقضاء كي كيان كدون نقضاء وتكون بحسن الشقويين كوسجادة قرأيسان ويب سايت تستو الشقات كيان كدو كرد إلى القشو شقة بحسنتو ودن كان جوكتا لن بين كشاقين ودن كان جوكتا باسبور كان هيستو wax kasta inaad sax u marto ogow maanta dad badan baa jiro ka imaanayo India ka imaanayo Malaysia ka imaanayo China ma garatay baasaboorradooda xogooda ku soo maraan marka dadka Soomaalida baasaboorkooda way diidaan ma garatay baasaboorkii aad ku wada buuxsataan wixii alla idin soo qorma gafaysa waxaa laga yaabaa intaas milyan oo qof in hal mar wada buuxiso waxaa laga yaabaa nasiib ku yeelato in adeeg ku soo baxda ma garatay laakiin waxaad ogaataa haddii lagu soo qaato adiga aad shaqaynayso 5 sano ka yar shaqada ay ku dhamaato waddanka waa lagaa soo saaraya waddankaaga lagu soo celinaya waa lagu soo tarxiilayaa 5 sano waa qandaraas caadiya laakiin 5 sano gaarto markaa sharciga deganaanshaha buuxsan kartaa markaa aad baa u mahadsantahay hayo walaadiga assalaamu calaykum ayko Ahmed maxaa fahamtay maanta you guys want to answer any questions? How are you guys feeling? Happy? Good. I'm glad to hear that. Coach Ahmed, inta joogta Minneapolis mise inta joogta Minnesota haylowina Summer Festival oo dhacayo June 28. Assalaamu calaykum walaal. Calaykum salaam walaal. Magacaaga xagga nagala soo hadlayso. magacaygu waxaa walaal Cabdiraxmaan waxaan joogaa Muqdisho. Masha Allah Muqdisho soo dhawow su'aashaada soo daa. waan dhawahay walaal waxaa idin weydiinayaa qof macnaha America reject laga shiiyay oo Canada joogo qaabkuu sharci ku heli kara macnaha Mareykanka ayaa sharciga looga diiday Canada u galay waa qaabilaad waa la siiyay hadda marka sharci ma haysto malaka iska soo daday maadaama asylum siiyay ma garanaysaa Canada waxay ku fiican tahay sharci way siinayaan laakiin cabaar bay qaadanaysaa guri bay siinayaan qaar caafimaad bay siinayaan marka hadduu ka baxayba Canada u galay way wanaagsan tahayba marka waa u fududaa aad bay ugu fududaa walaal okay waxaa kaloo weydiinaya barnaamij waxaa maqlay hadda ka hor inay saxtaa in kala moogi oo ay qofku xagga Canada joogo kaleeto haddii uu seminaries mar xag ka dhacaya waxbarasho inuu ku soo diro haddii aad Kenya kaleeto ay maado safaaradda barnaamijkaas aad ka buuxsato in macnaha aad tagto kadibna aad isku dhiibto waxyaabahaas ma jiraan saaxiib horta madama si sharciyan ku gashay waddan iskama dhiibi kartid waayo farahaagii informationka ay wax kasta uga hayaan haddii aad ka soo qabo haddaad Mexico soo gasho Mexico si sharciyan aad ku soo gasho Mareykanka waa iska dhiibi kartaa ma garatay sababtoo ah Mareykanka sharcigaaga informationkaaga ma hayaan haddii aad Mareykanka ku soo gato si sharciyan ah waddanka Canada iska dhiibi kartaa si fiican laakiin iskama dhiibi kartid waddanka si sharciyan ku soo gasho iskama dhiibi kartid okay waa mahadsantihiin qaar assalaamu calaykum إن شاء الله برنامج شو كوجبه إن شاء الله أنت ضد كنا سؤال بدل ما سوق رئيسان سؤالان ما آخرين كانوا أنا وحنا جوا ساوث أفريقيا باسبور ريفوجي أيان هايستا سيدهم كوي مان كرا صاحب باسبور ريفوجي أو ساوث أفريقيا ما كار قحوتي مسحويان باسبور سوق الصار برنامج برو قحوتيجا بوت جروب كأهين سوق صاحب سوق بنايا dadka Minneapolis joogo dadka aad leedahiin saaxiibaha ku leenahay Minneapolis waxaa dhacay Summer Festival oo dhacayo June 28 keeda bisha 6 keeda ilaa July 7 waxaa imaanaysa qof marti ah oo fanaanad ah insha Allah kulay ku jaaxay fanaanad uu soo doonaa hani UK magac ma sheegay wali assalaamu calaykum walaal عليكم السلام ورحمة الله وبركاته magacaaga xagga nagala soo hadlayso أنت قادر أحمد ولال xagee ka soo hadlaysa saaxiib يوم مقدشان كسو هلا muqdisho halka joogto mugdi dadkii la soo hadlay meel cad bay ka soo hadlayeen haye ma jirtaa ها لارك بايدن سنة ما شاء الله su'aashaada soo daa saaxiib يو برنامج كان اللي قد بقى كندا adig Canada doonaysaa timaado يا ma Canada doonaysaa timaado Canada
ها ساسا جعلانيو marka aday see jecesha ku timaada marka ardaynimo mise shaqo raadis shaqo rays iyo ardaynimo qaabka fudud leh si hadhow aadi wadanka ugu heshid wada noolaasha ama sharci laakiin waxaad ogaataa haddii aad si ardaynimo ku galayso iskama dhiibi kartid ilaa 5 sano ilaa ka gaaraysa ma garatay صح sorry hada kaas waxa ka shaqada weeyaan kan ardaynimada waxa weeyaan marka jaamacadaada dhamaato oo aadan shaqo haysanin wadankaaga lagu celinayaa صح waka midkaan kalena oo shaqadana qaabkee waa marka saaxiibka shaqada baasaboorkaaga Soomaaliya ku soo buuxsanaysaa haddii ay shaqada ay ku qaataan website xagana ku soo qorato luqadda Ingiriiska soo suuteen waan isku fiicana ما شاء الله shaqooyinka website-yada gashaan inaad buuxsataan shaqooyinkeena waxaa samaynaysaa marka shaqada buuxsato waa lagu wacaya xagga safaaradda interview baa maraysaa haddii aad hesho viisaha waxaa samaynaysaa 4 sano haday ku qaadato 4 sano shaqada dhamaato wadankaaga lagu soo celinaya Soomaaliya lagu soo celinaya lacalla haday dhacdo ka soo qabo adoo joogo 5 sano weli shaqadan ku socoto marka sharciga buuxsan kartaa wax kale su'aal ah markiina soo apply grace doomiya oo bagooda meelahaas ka soo apply grace waka qof turki joogo mu qaab mu imaan kariya maxaad saaxib qof turki joogo mu imaan kariya qof turki joogo web ka way fududa sababtoo qaba qofka safar soo galay oo meel sharci ka jiro waxa imaaday ma garatay صح waka ورنيو تركيا مردو قادر markii xagga markaa ما شاء الله way ku fudaanaysaa insha Allah mar hada xagga tagto waxaa samaysaa dad kale insha Allah bilooyinkaaga waxa jaamacadda iska dhigo insha Allah kii markaa ka dambeeyo soo hadal wax markaa dhamaysan kartaa insha Allah Allah ku soo fududeeyo هيا صاحب ما استاذ هي adiga السلام عليكم su'aal ma maleynayo maxay tahay run ama maleynayo السلام عليكم walaal السلام عليكم وعليكم السلام soo dhawow magacaaga xagga nagala soo hadlayso محمد آدم برادر waxaan joogaa Turkiya ma ما شاء الله soo dhawow برادر marka buuf saacada ay ahay ma waan gartay dad badan buu hayaa qaabkee marka lagu soo geli karaa maartay Canada Turkigaas ku soo gashay saaxiib ma si sharci ku soo gashay mise waxa ku soo gashay si arday ahaan ku soo galay marka ma jaamacadda sii wadaysaa mise ma inayo ardaynimada xitaa qoota ku imaado ma fahad waan gartay ardaynimada qoota ku timaaday marka passport ma haysid passport Soomaali haystaa okay haddii mar aad ka haysato wax sharci ah mise kulli maadaama jaamacad ka dhiganayso Turkiga kulli ID waxa waa haysataa ma garatay waxaad samaynaysaa luqadda Ingiriiska isku tiin Ingiriiska Ingiriiska isku fiicanaysaa ما شاء الله waxaa samaynaysaa website waxa jira la dhaho indeed.ca jaamacado badan sorry kaas waqti shaqada jaamacadaha adiga garanaya jaamacadda Dunis ma garatay boqolaal jaamacado ayaa jiro Canada ma garatay waxaa samaynaysaa jaamacad qoota la muqtaala Canada wallahi qoota ku dahwad barnaamij boqoranta jaamacad qoota ma wallahi tata warkaas agtaas joogo xanaaqsiyan baas kaamirada ku aadibo jaamacadda qoota kaalis ma Oxlam bra seta yani yor ninka ma garanaysaa barnaamijku ma ka hadlaysaa maxaa marqaati waa ka taa ya barnaamijku ma ka hadlaysaa what's going on my friend maya sheekada dhageysanayay marka jaamacad qoota la dhaho ingiriiska ka jirtaa riwaayad waay وراني I don't want to go to English I mean UK brother UK دولي iyo xasaa maartay laga helaa dawli markay ma fahanti Canada rabaa isku dhigo Canada cali Prince cali aan ii sheegay marka saaxiib baasaboorka Soomaaliya okay iga dhac markii dhameystir saaxiibkayga odayga waxaan aqsiyaa maanta soonka qabtaa ma xanaaqsan hadda anaga habeen bay noo tahay biyaha la wada caawaya habeen noo ma xanaaqsano coachka waxa weeyaan qofka kaliya waxa Soomaali week ama Soomaali festival week qabto ma garanaysaa ma soo dhaweey ma garatay xagga joogta hadda dadka kubadda ciyaaraya waxaaba isu keenaa marka waxaan ugu imaaday marka ana live ka soo galay dad baa ka ballan qaaday inaan su'aalooda ka jawaabaya marka asaga way garab fadhiya kaliya ma garatay okay marka hadda marka waxa ii sheegtaa maartay
arday ahaana maaragtay turkiga ku imaaday marka qaabkan ku imaan lahaa ii dhamaystir bal sheekada anaa kaa dhexgalay صاحب igaraan ما lahaa وحده ما صاحب لكن وحاسة من جامعة هل جامعة كده بوحين وكلها هي 8 جامعة هم يسلبوا بوحين ما قرأتين على صح مدى نصيب كاغا نقضي كل سو هدلان هدا دوني سو لعقدا هيساتو جامعات كسو بوحسن كرتا لكن هدا ليدهاي waxaan rabaa scholarship waxaan ku leeyahay 10 jaamacadood hamar application kaaga wada dir laakiin waxaad okay how long you think is going to take the process saaxiib hadda jaamacadaha hadda way xiran yihiin ma garatay saddex baa ka dambaa la furayaa marka saddex bilood okay inaan ku qaato laga yaabo hadda waqtiga ugu wanaagsan oo jaamacadda buuxsada waa hadda waqtigan taaganahay weeyaan okay hi brother aad iyo aad u يا mahadsantahay الله السلام عليكم yaa qofka ku dhaca Europe visa Finland muxuu dhahay nin cad oo soo qasabtay ma arkin ya dadka Soomaalida aan garan lahay saaxiibaan kusoo garaacaya sug funny guy haddaanu soo weysatay inaad ku soo qabto ka raal noqo Coach Ahmed dad badan baa inaga soo caawo haye maasha Allah dadka reer Afrika iska jecel anaga nabadoon Cumar New Canada waa nacay wax soo socda salaam calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برادة أيوة حالة هذا aad baa wacla seeta walaal codka hor qaad waxa lama maqlay برادة هذا مين مقشة هذا تامين مقشة والله codka waa iska lixib laakiin wax dhima lama xaama headphone baa ka hadlaysaa mise taleefankaaga caadiga ahaa تليفونك عادي واي إيه فونن إيه مجرى إيه فونن كما ما هايست ما هذا قرأت عادي هذا عادي هذا إيه ورن محايسة والله ما شاء الله magacaaga xagga nagala soo hadlayso saaxib صاحب مجعي وعبد الرزاق علي اللي دها واحد كاغلا سو هادلا دلك كينيا نيروبي ما قرأتي ما شاء الله soo dhawow su'aashaadana soo daa saaxib صاحب سؤاشيدا waxa waaye arinta horta dhowr su'aal ah wataa sorry arinta hay soo koowaad daa waxa waaye qof oo ii sheeka baasaboorka oo refujiga aan haysta ka udhex waan gartay baasaboorka refuji baasaboorka refujiga aan haystaa haye Uganda waa marka noocaas u yaala ma garatay waan gartay marka waxaan rabay inaan ogaado Uganda waxaa la dhahay ilaa hadda ma ogi laakiin qofkii oo Canada jiro haddii uu qofka Uganda uu refugee ku yahay haddii qof Canada jiro uu ku sheegto oo dhaho aniga qofkan wixiisa masruufkiisa ana group 5 ma aha qaab kale oo refugee adigoo refugee ah wuxuu ku dhahaa qofkan aniga responsibilitygiisa qaadaya camal maxaa ka jira saaxib group 5 baan ku sheegayaa horta yara sug haddii aad waddan kala joogto kaar qaxooti aad haysato qof aad ka garanayso Canada ogow hal qofkii kuma soo kaxeyn kara ma garatay sababta ku soo kaxeyn karina waxaa weeyaan waa shan qof baa loo baahan yahay group 5ka waxaa weeyaan qofka waxay anaga garanayno mas'uuliyadooda anaga qaadayno guri karadiisa wax kasta u baahdaa ma anaga mas'uuliyadana saaran tahay ma garatay laakiin shanta qof taas waan dhageyso shanta qof waxaa loo doonta shanta qof waxaa weeyaa hadii lacala qof shaqada ka dhamaan karto qofku dhiman karaa ma garatay hadii saddex baa soo harayso taas waan fahmay taas waan yara fahmay laakiin aniga hooyadeeda Canada jirta ma fahantay marka qaabka group 5 way xariir rabtay laakiin waxaa la dhahay qaab kale hadda soo baxday qofkii oo refugee Kampala ku ah ama Uganda refugee ku ah qof Canada jira haddii uu sheegto qofkaas hal qof ha ahaado halkaas qof hadduu dhaho qof hebela aniga aqaana hebelkaas ay qaadayo hebelka marka formka uu buuxiyo waa lagu qaadaa taasaa raba marka in aad advance ama idea ka heshid saaxiib horta ani kaar haddaad leedahay kan caadi sponsorship weeyaan qofkan dhiigaaga lagu baarayaa mise haddii hooyadaa tahay cantuftaada la baaraya hadduu aabbahay dhiigaa la baaraya ma garatay taas waa mid gaara waa sponsorshipka caadiga ah ma garatay maya taas ina idhasha iguma qaadayso caadi anigoo qaxooti ku jiro waxay dhahaysaa bis qofkaas qaxootiga oo Kampala ku ah responsibilitygiisa aniga qaadayo
ii sheeg waa kaasa qaabkaas sax ma ka garanay saaxiib ani kaa wax ma kama mise garanay barnaamij cusub waa waa kan u soo dhawo xabiga group shanta ma garatay group shantana waxa weeye shan qof isbaysato bay sababta hal qof kaliya kuma soo qaadi kara mid aan kuu sheego maanta qofka kaliya ku soo qaadayo kulay waan ku garanaya mas-uuliyadoodan qaadayaa shanta qof waxa looga dhig waa sabab qofkan waxaa laga yaabaa shaqadiisa ka baaba'do waxaa laga yaabaa in dhib ku soo dhaco waxaa laga yaabaa in lugta ka jabo waxaa laga yaabaa inuuna shaqaynin baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa qofka inuu financial fit ahaado ma garatay financial fitna waxaa weeye qof lacag haysto oo isbedberi kara ma garatay qof kalena soo dulqaadi karo marka ani waxaan ku leeyahay haddii aad doonayso group shanta waa taasi waa gaar laakiinse kan weligii ma maqal ma garatay saaxib ani runtaan kuu sheegayaa okay midda kale aan raba inaan ku weydiiyaa waxay tahay soo daa ayaan dhexdaasa waxaan xareystay dhowr job oo website ah websiteka ugu dambeeya ayaan dhexdaas wuxuu igu dhahay markaa finally aa imaaday oo finally meesha ugu dambeysay ee ahayd way dhahay ii sheeg immigrationka form numberkiisa xataa wuxuu igu dhahay 50 wax saas numberkaasa aad leedahay camal kabacdi websiteka qaar dhinaca kale oo isii gudbinayo lagu lahaa $35 dhiib bixi markaa $35 bixi sida lagu wacaa waxaas maxay tahay saaxiib wada dad way jiraan lacag waxaa kuu bilaabay ma garatay maanta hadduu $35 kii kaa qaado waxaa laga yaabaa inuu aaminaadaada iibsanaya ma garatay wuxuu isleeyahay maanta markaad $15 kii aa weydiiso wuxuu isleeyahay qofka wuu kugu aamin qabaya wax usoo dir laakiin marka dambe xirana lacag badan kaa qaataan ma garatay dadka ku weydiinaya lacagta waa inaad iska hubiso halkay xafiisku leeyihiin waa inaad xafiisku adresskooda ku siiyaan waa in numberkooda aad garaacdo ma garatay waa dad qofa caadi inuu kaa qabta weeyaan marka haddeertan facebookgayga haddeertan kuleyta buu kuusoo galay dhinaca messengerka linkiga ma igu soo diri kartaa websiteka ugu fiican oo la booqan karo oo jobka aa ka xareysan kartid insha allah haye walaal haye ana igu hadlay anaa ku sameeya walaal assalaamu calaykum formka ii sheeg oo la buuxinayne qaabka oo ugu fiican weyga ugu fiican loo marayna saaxiib isagoo form ahaan ma iisoo diri kartaa aniga wax kasta kusoo dira insha allah message iisoo qor insha allah waxaad anaa kusoo dira walaal insha allah midda kale aan ku weydiina aan su-aalo kaa dharga saaxiib maya saaxiib dad badan baa sugaya marka su-aalaha waxay maraysa haweenka maraan kaa soo qabta ma garatay dad badan baa sugaya insha allah waqtigaygana uu yar yahay oon sii hooyanayaa insha allah haye brada waa ku salaama khayr badan insha allah aad baan kaa qaad assalaamu calaykum insha allah dadka doonaya su-aalaha qabo insha allah haddaan kusoo qabani waaye kar hale noqda insha allah munir waan kusoo qabanaya kar hal noqo abu munir saaxib camerada masha dad kuma soo qabani karo insha allah waxaa samaysaa inaad dib uga baxdo dib usoo laabo camerada markaa camerada dib usoo shido insha allah saaxib dadka buufta gurida baa ku maanaya waan yaabanahay saaxib kuma soo qabani kara saaxib camerada mashada camerada soo shid saaxib insha allah shucayb baan kusoo qabanayaa صاحب شعيب انا دهن منير وحاسه ميسا دب وصوق السلام عليكم صاحب عليكم السلام سودو مقعي حق انا قرصو هذا يصو ادوا صاحب waxaan joogaa Kenya joogaa saaxiibo shaashada Suudaa su'aasheedu waxa waa saaxiibo baasaboor Kenyaati qaba marka qaab noocee ayaan ku xareey karaa barnaamijkan hadda shaqooyinka aad sheegaysa saaxiib horta luqada Ingiriis isku tiin waa isku fiicannahay Kenya ku bartaa ma sha Allah waxa sameynaysaa website badan baa jira ma garatay midka badanka shaqooyinka laga helayana haddana ku soo diray mesba ku soo qoraya xagga commentiga ka eego ma garatay hay waxaa samaysaa website badan baa jiro ka kaliya ha eegin inta website aad leedahay shaqo waan ka heli karaa shaqo kasta buuxi ma garatay maanta waxaa laga yaabaa inaad ka daalin weliga dadka Soomaaliya waxay haystaan in shaqooyinka isaga soo garaacayaan waxaa lagaga baahan yahay inta shaqo aad buuxin karto inaad buuxiso ma garatay baasaboor caadi baad haysataa Kenyaanka dadka Kenyaanka ku imaadaan ba shaqo kasta buuxso waxa kasta qaban kartaa leedahay waan ka soo bixi karaa soo qabso laakiin waxaad ogaataa hadda si sharciyan aad ku imaato oo ba shaqada dhamaata laakiin baasaboorkaaga ay Kenyaanka lagu haysto wadankaaga lagu celinaya ma garatay صح
laakiin insha allah wax kastoo kusoo fudaanaysa dad waxaan garanayaa oo shaqo ahaan kaga soo baxay kenya kaga soo baxay laakiin website-yada gal Indeed jobs tag shaqada jeceshaa buuxso sidaa ku imow okay website-ka luuqi igu soo dir marka waa arkaa xagana kugu soo saab xagana ka commentiga ka eego ay ayo assalaamu calaykum alaykum salaam كوج أحمد سمر فيستيفال ولا إن أنت وأنا شو يقرأ فنادي وينت هنا UK weli waaye aan ii sheegaya markay waqtiga أوكي قارد جوتي نوشة كلية فنادا يوروب جوتها marka cali dadkan oo dhan waxay ku maleynayaan adiga inaad Canada joogto muu sheegtay inaadan Canada joogin aniga Canada ma joogi aniga waxaan joogaa dalka Mareykanka gobolka Minnesota maxaa tiri saaxiib nabadoon aan kusoo qabanayaa saaxiib waxaad ogaataa dad waxaa jira Canada ku nool oo wax macluumaadkan hayna qof kasta wax kasta waa عليكم دعم السلام عليكم وعليكم السلام برادي waxaana seeta walaal بلا بلا عماد كاي ما شاء الله حقيقة la soo hadlaysa saaxiib South Africa kala soo hadlaya saaxib ما شاء الله South Africa aad baan ugu soo dhaweynayaa su'aasha soo daa maxaa tiri dukaan markaysa waan dhawaa saaxib waxaan rabaa inaan idin weydiiyo war lacagaas ugu kala leexsan oo ayaan shaqaynayay waxaana ka cabsi qabaa qolox mu xawaalada iyo isna igala gamiso meesha lacagta taa shaqo soo la gambiyay waa gartay inaan isku soo tuuro rabaa walaal sheega wallahi horta visa la iibin anaga xagga wax war ma hayo ma garatay sax dad badan baa ku dhahay waxay ku war lacag ma haysataa kaana lacagtan keenso visa lagu soo dhameyn horta dadka ku dhaho been bay ku sheegeen ma garatay dad waxaa jira visa waxa lagu ka iibinaya wax guarantee ma wajirto fiican sax qof hadduu ku dhawr aniga waxaan kugu keenay oday inan baa kula soo hadashay waxay ku tiri odaygii ahaan baan kugu keenaya $20 isii waxaa ogaataa xataa inay interview ku dhici karto wixii lacagtaada meesha ku baaba'do war 20 kun xataa diyaar waa haystaayo qof un baleen keeni karta sheega wallahi horta nin aniga waxaan aaminsanahay lacag 20 kun dad haysta hadda waxaa samaysaa waa sahra cali say sheegtay weeyaan Canada joogtaa waxay tiri dumar badan ma jiro Canada ma garatay inaad dadka xiriir la samayso aad aroos fiican u dhigto 20 kun ba ugu dhigto marka iyada ku kaxeynaysa kulayba baa aniga taladeeda gabadh badan oo North America tagay South Africa koola soo yara galay ay maxaa tir saaxiib koola soo yara galay kool may wax dhama laha marka waxaan ku dhahay waa inaan haysato ma garatay si fiican marka budgetkaasi soo xiraniyo waa Afrika waa lagu daalay loo shaqeynayay waxaan ku weydiiyo haddaba 20 kun lacagta iska haysataba ma inaa waddanka isaga laabto waa shaqo samaysiniyo Soomaaliya loo qarxinaniyo waa hal mar laga guwa lacagta Soomaaliya 20 kun maalin laga qarxinaniyo wallahi ma laga soo bilaabo nasiibkii ma garatay ani waxaan aaminsanahay meesha jecesha adiga Soomaaliya leedahay meel kasta sama qarxinay dad Muqdisho tagayeen ma garatay wadamo magaalooyin kale way jiraan أنا وحنا أمسنا هاي لعقت هذا إن هذا كوسو بدقين حاجة عن دبدة وحاسم يسا حاجة ودن كصومالي هذا هير بوجاريا إن شاء الله إن ودن كلعقت دي بوجرسو أنا هاي أهانتي ذويان ورساس ورلعقت كو قوة مش قيني وصومالي إنه كل الواي مركب عواي العقت قوة اللي وعواي إنه يصير هذه ما نقول الله من غكر ودن كنا ده وعواي في عيا ما شاء الله إن قصته 2017 كمرتجي صح وأنا قصة لابطي فهمت وانقرتي marka meel hadda ganacsi wax waa jiraan laakiin waa dhibkiisa iska badan wadankoona macnaha xalkiisu 90% noqon waxa waaye waa iska dhib badan yahay marka inaad qarash intaas la geliso marka waxa waaye baasha dhibaato lagu shaqeeyay rafadka u jirta loogu jiray bal meelahaas Mareykanka meelahaas naga siiyay kasto oo Trump una qabateen ugu riday dhikra la ku riday ma wallahi hadda midda kale wax badanta waxa la leeyahay inaad 4 sano dib loo dooranayo ma garatay fiican واركتا سعاد حسن عمر وحكو 30 كيسو طول انا كندا ku geynayo كل wada سعاد toos oo la xiriiri kartaa hada 10 kuma dawo soo ramaysan kartaa laakiin anaga waxa mas'uul ka nahay ma garatay سعاد la xiriira سعاد daaima qala isla markaa oo sii wareeb سعاد حسن عثمان hadena markaa oo sii wareeb wada xiriir doona insha Allah ma fahant haye walaal haye insha Allah kana waxaan ku dheelaha wadankaagana wax dib lacag dib u gal waxu wadankaaga insha Allah kulli wixii la ku soo qor ma inta passport waaysta oo wadanka dunuba meel walba oo ugu tagi karo inta Mareykan ugu tagi karo laakiin fiisa u baahan fiisadaas la iga taan waa kale aniga ma insha Allah Donald Trump wuxuu xigtay inuu 4 sano kale loogu darayo insha Allah hadduu dhintana kulli ka wasi fiican balaakiin 4 sano kale loogu daro marka dadka Soomaaliyeed dhiban yihiin brother
marka waan iska waraynaynaa insha Allah sucaadaan la xiriiraa sucaad lambarkaaga hoos igu soo reeb insha Allah هي السلام عليكم سعادي ومقلسة صاحبك النمبر حقه سوق صرفته كل سوق حريره ama hadday soo qabsan karta soo qabsato ayadan wixii warbixin halkaa igu soo gudbiso insha Allah والله هي انا سوق وانا ان شاء الله ayada ama soo dhafku joogto waxaa idin soo daan fikir dadka meesha ku gaadayso luqa kugu soo kore saaxiib laatanku ay soo door oo kulay dadka amiin ku soo qabanaya sucaad waxa laga dadka meelaha ku jiraan yihiin oo ma garanaysaa oo South lacagta ka qaadayso maalinta markaas ma ay ku laabanayso way dhici kartaa إن شاء الله وحنجعل هذاك سي شيء برنامج كأعداد وما سنتين إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله مقعد حاجة خلاص الله يسوع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرمك from Germany جرمك خلاص هذا ساعة brother والله سؤال هذا السوداء brother نيو دقناشا يستا وحري برنامج كندا شيء ست أو حري شق عمل كمبني أو كندا مثل تورنتو وان قرتي وحبا حرست ترمس وحبا سوقي ساعة زوار بطاقة وحرست والسوق مركب برنامج كاس وحرس ولي شيء صح يعني برنامج وعيد مركب حايستا باسبور نوع مركز دقناشا مثل جرمك شن سنة جوجا صح مركب جوابت السوق ويا بسنة مثلا ولم يسوي جواب مثلا ما يصاحب إن شاء الله خير مرة جينا إن شاء الله إني أكون جواب الدونال هذه ما عندهم كندا waxaan ku leenahay Allah ku soo fududeeyo dadka sida ku bixisay dadka waxaan jeclahay in la wadaagto sababtoo dad badan waxa jiro oo Europe ta joogo oo buuxsan kara laakiin aad aqliga maskaxdaaba hayni ma garatay صح maxaad kuga cabir maxaad ku sameysnaa in buuxsato ii sheeg maxaa kuga qasbay والله قبل ولا شيء كنا جبتها واحد هذا معنا برنامج كسجره سو بوح معنا شغل أكتر كسدوا عمل مركز حدا حكى شغله في عن مثلا نع كندا شغله في عن مركز صار ما أنا دبك المجرم فهمت جرمك والله ودقنا وكنا متخاف فهمت سومالو دانتا you know what I mean ما والله هذا كذا كوسو فضاتنا كذا إيمان كرتا هذا لا هاي نجرمك جوجو سنة وأنا كسي في عنتها لكن كذا إيمان كرتا سكيمو كشقيساني كرتا لكن أوجو هذا شرعي ير هيستو لكن وحلاقة باهي ودن كا سدح سنة ودن كا كلامته مز حاجة سفارة الله صعدت مقرتي صح لكن يعني وحنا كورة ترى هدي بقى سوق الشباب كندا هذا الشباب كندا إذا حاسب على ستة شو قول ستة ما شرع لو سيا ما يقدرش يخيل شن سنة وحيد يقدرش يخيل شن سنة ودقنا كرت عمل هذا ما فهمت ها ما إذا شن سنة دقنتها مركز شرعي دقنا شذر القصينة مقرتين لكن باسبور كير هذا هي ستة ترى الجرمن كأه وحاوية سدح سنة كل عصام إذا شن سنة برت مت باسبور كان عرفت من هذا ها لكن ولا عزب السياسة ما لكن أرض ولا عزب السياسة لكن مركو أنا سفارة هذا كل حنا تويا يونا كاغر عن لابد بدنا هواش كوينين واتردي إذا نيجا ما قرتي مركو لكن هدي أنا ستيزنج سديس سنة واي هذه وحيد من بس سنة يبر سدح سنة يدي من هتاكاس خاطر عادي ما معنا كل سكر الله من فيزا اللي كفتنا عنه مر هدي باسبور كوين هيستو عد كحكت مجد إن البوركة تكتب تيجي بسوق وسنة يسا فيزا مباهنة ودنك كلا عيسى لح برود باهج زنا شقة كويسة هدي ودنك لح برود أجوكتو الشقة كويسة مريكن كذا دون تجاري وسوق حسن كرتا مريكن كسوق عيسى فيزا لح برود بكوسينا دي وغلامن كتا ودنك هاجا كندا أوكي ساسك فود بنيو برامج ستيسين كسوق ما فهمت اسكتوا والله تاس إنك فود دلقيها والله بالله ما دام أوصل القاط واحد بدن مش حق قبضة واحد برنا ما فهمت لا تروح برشيدهم كجرا وحوا الصومال أنتوا كل دون تموت الصومال وحوا واحد برشيد واحد سوق قد ملهاني ما عادي هذا ورمتا ما إن شاء الله واحد يسكسو فضاني سلا كان راح نقول لها تسكسوك إن شاء الله جرمك عنها جرمك سكجوت كوتش غلا هذا برادر جرمك إني واجوجا لكن قبل ولا شيء وحيد أنت تورنتو مركا حد كهر ماركنو أنا وير دعوة إيو في جرمك بعد وكسر تجا الصومال ما هذا سكول كاسي وضي مركز سكول لما يكبع تركيا أما تركيا كتاريخ والله يكون أفريقيا أوكي ما شاء الله الله جرم كوافي عنده برشلونة في عنه ولا هذا كود ما وابرتا إلا هذا دائرة سكولي مو وابرتا مركا وحوا برشلونة في عنه إمارة ساحر فتنا برتا مركا وحاس ده هاي قبل والله الوحيد هذا أكتي ذا كفي عن تأملنا نعش خذوا كله هاي وعمل أوكي
صاحب ان شاء الله انا waxaan kula yahay iska sug baasaboorka wada helas iska sug marka cidna kaama xigto inaad tigid soo goosato wadanka doonta ka degataa ma garatay laakiin ana waxaan ka cabsanaynaa halkan timaado sharciga ka weyso xagan sharcigoodana ku weydo ma garatay marka niyo waxa waaye waxa la lahay wax badan raayis waxa lagu waa mugtahay صح marka hadda ka hor qisaabta dhacday 2000 iyo sanadka hore dhacday waxa la lahay xariifa inta ka baxay Jarmalka uu tahriib asoo sharci qaxootiga u ku leh wuxuu aaday Mexico Mareykanka oo galo Donald Trump ku soo aaday xiligiisno صح Soomaali laga dejiyay brother nasiibkiisa marata adiga ma marka adiga kulay hadda Canada taa kama dhaceyso haddii ka dhacdana waxa laga yaabaa inay adiga ugu dhicin laakiin qofka soo nasiibkaaga waxaan kula yahay Jarmalkaaga iska joog sharcigaaga marka soo qaadato marka maxaa ku geliyay waxyaalo kale ورساسة سمعنا إن شاء الله وما سنتها برادر أو سلام ربنا يكرمك صاحبنا الله يشكرك يا صاحب أدبر ما سنتها thank you very much عبد العزيز وحوده هاي when is the tournament coach كل مدعى يا عبد العزيز June 28 to July 6 وكوتش June 28 to July 6 أي أفسد مالك وشك June هاتي سيديد إلى July 6 كذا أفسد مالك الجمعة ولا رفته جناي ما بس ما جون جون جولاي بش اللي حاد ويان إن شاء الله بش اللي حاد هاتي سيديد إلى بش طلبات لحية إن شاء الله تدك برنامج كلا سعودة وحان تدك لازم تري ما قرأتين ما أنت تضبط مع الصوت قرأ يوقف الشيء عدد ما سنت تدك يوقف الشيء تدك سيسر قرأ ولا نمد علينا هدي جيران صدق خوف كلام سوق وانا هدي جيران قف سؤال قبه ودوني نسوق قبته صاحب يا سوق قبصة إن شاء الله وإنا أذيرو دتك دان كندا بعد مسكح هذا كجلسي لين بعد ده هذا نفسه هذا كوتش أرتورا كان حقله برنس علي أنا كندا ما جوجنا حاجوجنا مينيسوتا مينيابوليس وليبا قارهان على برنامج كان كندا أسقع وضو أنا كمور هايو صح إيش أنا أسكسوف ديستي على مارك عاو لقب مقابلنا برنامج كان كوج أحمد هاكي ماركي لقى شيء كي دمر كذا ده دمر لان كوج أحمد سوي استاي كوج أحمد ضلينا بدو ما يسوى قرتي كوج مينيابوليس مكا قحضي ما يواجهوا مينيابوليس ما شاد كاس كوج وكا قح مينيابوليس وحو قاري تورانتو بقوس السعوداء ان شاء الله وينا كوج كدب سوق لسان ويان ان شاء الله كوج نبا يا صاحبي وحو هاي نيو كندا انا يقول بنا ددك ما نوغو سو عرسين ساودا ما نغي قوتي ددك ما كينسا اوكي كومنتيga caawdana fiirinayay ee maxaa garatay dad badan waxay aaminsan yihiin waxa sheegaysid ba inay maaragtay iska jaabjeena tahay laakiin aniga Canada waxa ka socda ma aqaan kulay adaa shanta sheegay shanta ma group 5 ka barnaamij oo hore u socday ma hore loo yaqaanay ma ka kaliya maaha group shanta waxa bay shan qof oo Canada joogto adaad waxa way adiga saaxiibadaada oo dad aad tahdana waxay joogaan Libya joogaan masaakiin wayaan oo kaar waxay haystaan anaga ismaasho soo sameeyno anaga soo kaxeynayno mas'uuliyadda anaga qaadayno maadaama dawladda mas'uuliyadda qaadayna laakiin qofka dawladda keento kiradiisa iyo wax kasta u baahda oo dawladda qabto Soomaa kaaga ciyaartiisa laakiin qof idinka qaado dadka ma shoodo saaxiib aan ku soo qabanaya insha Allah وسمت والله لندلي صاحب ان شاء الله صدح قف كلا هرتين انه سو قبطو ان شاء الله marka xaafadina si aadaya ima saac coach wali waa waqtiga السلام عليكم عليكم السلام walaal صاحب aan ku dhahay horta dumarka saax lama dhihi karo horta oo maya may lama dhihi karay haye walaal waa ka wanaagsan Soomaa ولا حاجة حاجة صار حاجة صار الله يصور waxaan kala soo hadlayaa xamar walaal waxaan rabay baasaboor ayaa leeyahay oo Canada marka Soomaaliya jooga ama ku bixi kara anoo Soomaaliya jooga baasaboor Canada baasaboor Kenyan baa lagu hayaa mise baasaboor Canadian baa lagu hayaa Canada ma Canada ku dhaltay marka baasaboor Canada si lagu soo saaray macna qof eg gabar eg oo habriiti dhashay si fiican isku egnahay jirto markaan waa ii keen waxa waa lagu keen xamar ma ugu soo bixi kartaa horta mid aan ku sheego inaad adiga xabsi ku gashaan mar ma garatay
baasaboor qof kale leeyahay صح aad tiraahdo waan kusoo baxayaa horta baasaboorka wejiga keli maaha sababtoo ah markaad Soomaaliya soo galayso baasaboorka mise kibaanaha qof kasta kusoo bixi kara ma garatay laakiin qurbaha Mareykanka Canada Europe waxay isticmaalaan face recognition wax la dhaho waxay isticmaalaan fara bay isticmaalaan maanta markaad soo galayso farahaga la eegaya wejigaaga la eegaya wejigaaga bah lagu saaraya ma garatay marka waxaan ka cabsanayaa in aad kusoo bixi weydo xabsina ku gasho marka aan waxaan ku dhihi lahaa ha isku dayin waayo sharciyo badan kusoo bixi kara wejigaan laakiin qof kasto qof kale baasaboorkiisa inuu kusoo baxdo way adkaanaysaa اوكي هاي ولا لا ما تسنتي هي ولا دقيقة مضان هاي كوتش قف كلا باسبورك مو صبح كلا والله ذكر ريسكي سو اخذته ودنك waxa lagu yimaado dad badan ku yimaadeen laakiin hadda ma aha riski badan 1996 kiyo 2000 kiyo kuwaasi waa gaar saaxiibayaal dadka dhahay soo qabar ugu soo qabanaya cabdi halka bakana coachka noo aqrinaya wixii comment ah إن شاء الله لكن قف كلا باسبور أسجل وليه هاي كم هكوصل بحنا هذا كوصل بحنا حبسي بكون قريسان السلام عليكم يا عبدي السلام عليكم وعليكم السلام هذا ريو رساتها وعنا ساتها والريو ما شاء الله بارك ريو ده انكسر على لسعون برسيسكو مين اللي حنك لسه قبص باشا واحد واحد شو صوت أفريقيا وين قلتي يوم مركب ولا قاب كانت بليش شرح على عليه بليز قاب يكون شرح صاحب قاب كي ويا كان هذا نيسو أنا هذا واحد حرت كوتشر برسيس كوده صح برسيس كنا أها أيوة حاسكية مركا صح مركا شرعي واحد كان كويس وحده إنه حاول شرعي سكير وين قلت سود أفريقيا سوى مركا وبقى يا مركا ها صح ولد شرعي ربيس يا ولد ودك ما قابل لكن ولعل والله قابل دور عمرك كوتشوجا ما وين قلت ما يرضى كندا دين نقطة دي شرعية هذا هيستو كانت وحبكم ما قبلها ما قرتين وحقول أما باسبورك الصومالي حاجة يقول أما باسبور صومالي ولا كابا يقول أما كلها هاي لكن إن شاء الله دي بحاسة وحي كوده هذا حقرن هقول ما أعطي إلا مال كوسو جو هاي أوكي مركز سؤال هذا بس كسو بنقول يعني قاعد كسر قاعد حاجة كل ما نسوا إذا قال إيه دي عن في ساحل ما واحد اللي يقرب أنا باسبور كيو سومالي هذا ولا يسار مسا ما باسبور كوب حسين كوب حسين يا كان كحرس مال وسينيا كوب حرس يا ها اوكي ثانك يو براذر هيا يا السلام عليكم saaxiibayaal qofka ku soo xigo waa Maryama Bacdo last name very cool yeah insha Allah dadka sii share gareey barnaamijka aad ma santiin kala dad badan ma u faa'iideyseen aniga waxaan ka soo horjeedaa dadka inay tahriibaan tahriibtaan ma aha waxaan aaminsanahay si sharciyan ku imaataan wadanka baasaboor hadayna ku soo gashaan hadhow wadankiina ku celinaya wadankiina toos ugu laabataan dadka waa laga shaqeysan meesha waa laga tagaa laakiin qof kasta inuu dhahaa dadka Canada jooga dadka Mareykan jooga waxay ku leeyihiin in dadkan qaxaya maxaa ugu soo wadaa ani waxaan aaminsanahay qof kasta waxa loo soo qorma gafayo qof kasta oo caawin karta inay caawiso weeyaan insha Allah qofka ugu dambeeya soo qaban doona Canada dad way u baahan tahay dad shaqaale way u baahan tahay Canada ma garatay waa wadan weyn assalaamu calaykum walaal عليكم السلام magacaaga xagga ka soo hadlayso ايوه عبد السلام waxaan joogaa Kampala Uganda ولا سؤال هذا سوداء أمرك عارف برامج يدوقي برامج قابك لو بحي برنامج ولا البرنامج كحلقة هلا إن تذكر سو تهريبين إيش شرعيا كوي ماذا ودن كستبا صح وكا مع سؤالك قبتها كيما لين ويب سايت يا ويب سايت لا ترى ويب سايت ما أنا ذاتك وحوصل قلنا عاونوني وحي رأيي وحي طلع ما قرأتي وحوصل قال إنه أنا ما هي سنة هذا نص مينس ونص دري كنت هذا منها سميسو إن شاء الله السلام عليكم مريم سوق بنينا وقف وضم بين السوق بني إن شاء الله
waqtigii wuu sii dhamaanayaa dadka dhahaya dad baa waxay leeyihin coach muslim miyaa tiri ay leeyihin biyaa caweysa maad ranaya annaga inta waxay noo tahay Minneapolis 2 in the morning sidee saac weyn assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga ee xagga kasoo hadlayso مريم حسن محمد كوينا كمور وعكسها xagee kasoo لك hadlaysaa كينيا walaal xagee kasoo hadlaysaa tiri كينيا جوجا كينيا جوجا su-aasheeda soo daa ها سؤال شيء حارة قابك أو إذا تعال سو تهريبي إنه هو ما كان كندا أما أمريكا أما يوروب ma tahriib baa tiri أيضا لسو تهريبي نقول هاي ha قابك لو ما كرو على سيال سو تهريبي نتر ما هو ayaan lasoo tahriibinaa sax قابك لو ما كرو عمر كده لسو تهريبي walaal waxaa ku imaan kartaa ولا واد تهريب أو سعنا أنا ama tahriib haba tagi baan kulay laakiin waxaa samaynaysaa inaad shaqo soo buuxsato maartay website inaad gasho luqada ingiriiska soo tihiin luqada ingiriiska ah لغة إنجليزية حوار كستا ساس معي في عن لكن طبعا aniga markaa kuma dhihi على سامو بسادي لسو بحسها يا جماعة ha luqada ingiriis waa inaad horta macalin ku tahay weeyaa ma garatay luqada ingiriis waa inaad fahmi karto waa inaad ku shaqaysan karto صح laakiin waqtigaaga hadda ku dhumi kuma dhahayo sababtoo ah qofku waa inuu garanayo luqada ingiriiska markaa shaqo ka bixinaysa u darto waa inaad ku hadlaysa luqadii ma garatay صح عادي ha markaan waxaan kugula talaya waxaa weeya inaad jaamac mise iskool gasho mise private school gasho luqada ingiriiska si fiican u صح waka أيوة بس أنت يا ولد السلام عليكم وقف اسكت daacad ah insha Allah ay coach aakhir dadka dambe asad okay qof u dambe saddex jeer soo weysay inaad lagu soo qabto asad ugu dambeeyo laakiin asad kaamirada ma shidno insha Allah qeyb baad wada rajeynaa gutiga dhamaan waa inoo cabo dambo anaga hadda habeen bay inoo tahay 8 saac inoo tahay waxa suxul baan raasanaynaa coachkan uu sii baxaya insha Allah waxaan leeyahay barnaamijkeena la sii socdo dadka walaalihiin la sii share gareeya wixii su'aalaha qabtaan hadda idinka kaga jawaabi kartaa hadda maanta su'aalihiin ka jawaabay u jawaaba insha Allah cawada ma soo galaya waxaan jeclahay dadka buuxsaday mise jaamacadaha buuxsaday oo u hagaagtay insha Allah inay la soo xiriirto dadka walaalihiin aad la wadaagtaan saad wax ku hesheen insha Allah coach maxaad aqar وسلامتي كلجين على برنامج كان هو برنامج في عوايا كفايديستا سؤالها نسكسون ونقولنا مع الدرادة نسكداية وحمارة معقولة لإمادة وأنا بهتنتين waxaan leenahay anigu waa Prince Ali Wadani waxaan leeyahay sida ay nabadgeliyo